orodyahankii ugu wanaagsanaa abid ee soo mara Britain ayaa ku soo afjaray orodkiisa marathonka Great North. waa 40 jir aan u baahnayn in awooddiisa orod uu soo bandhigo. dhowr iyo 10 jir ayuu orodka marathonka gaaban ku bilaabay. waa horyaalka orodka Britain ee aan cidi la barbar dhigi karin. 10 bilood oo dahab ayuu qaaday, waxayna ahaayeen guulo isxigxigay. ma jiro bandhig orodka dheer ee barka ah oo la mid ah Great North. ilaa 60,000 ayaa ka qayb galay oo soo maray Newcastle kuna yimid South Shield, iyadoo cimiladuna ay aad u kulushahay. orodyahanada waaweyn waxaa ka mid ahaa Mo Farah oo aysan u suura gelin inuu guulaysto, balse taas waxba uma dhibin munaasabadiisa. markii uu laynka u dambeeyey dhaafay wuxuu ahaa qofka afraad, halkaas ayuuna ku soo gabagabeeyey orodkiisa. orodku waa wax i badbaadiyey. marka aan wixii aan samayn jiray ee aan jeclaa waayo, aad ayay igu adkaan doontaa. waan qeeraysanahay, waana qiyaasi kartaa. waa inaan tagaa oo qoyskayga iyo carruurtayda wakhti la qaataa. orod uun baan garanayaa, waana waxa sannado badan i farxad gelinaya. Mo Farah wuxuu aaday dhinaca taageerayaasha, kuwaasoo doonayay inay macsalaameeyaan. waa nabadgelyo inta noloshaada ka hartay.